madaxda qaran iyo dhaqan iyo baamushtar iyo culimo iyo da' walbana isu timid aada iyo aad baan soo dhaweynayaa mar labaad waa soo dhaweynayaa shirkanan maanta fadhinaa wuxuu ka mid noqon doonaaba ila tahay shirarka taariikhiga ah ee nabadda iyo horumarka dalka lagu urko intaasoo waayeela oo intaas u dhan soo shaqaynaysay oo huba nin waliba inuu in badan u dib jiray oo caafimaadkooda qaar badan wax u dhimeen oo muddadaa ku fogday oo wuxuu shaydaan ka adeeyay oo aanay ka talinin oo aanay ogoleen u taagla ee dhibaatooyin badan ku muntay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu naga soo gabagaboobo oo aynu helno xalkiisa inoo wada jira dhammaanteen waxaynu doonaynaa xal qof walba halkan waxaan ogahay dhibaatada uu qof ahaan u qabo arrintan aad soo jeedteen marka hore waxaa inoo guddoonaa inaynu nabad qaadano oo nabad ka wada shaqeyno wax walba nabad aynu ku dhamayno waxaa inoo guddoonaa wax walba inaynu nabadda ka hormarino inagoo isu duuban oon kala sheegsaday arrinta dhibaatada sanaa ka jirta ee ciidankaasa laba qodob baa soo dhigteen mid wuxuu ahaa nabad baan wadnaa nabadda nala qabo iyada waa guddoono waa ka jawaabay ta ciidankaa timid saamaxaad baa soo jeesteen saamaxaadda madaxweynaha intuu awoodinayay waa taqaana lama odhanin waa boqoroo wuxuu doono sharciga uu ka boodi karaa halkaasu mari karaa saamaxaaddu wadday samaysay sharciyana oo loo maro aniga oo wax waloo nabad lagu helayaba diyaar uha ogol wax wal oo nabad lagu helayaba anoo idinkala mid a haddana marna qof baan ahay hebelow adigu waxaa adag ka mas-uula qaba ah waxna waa lagula leeyahay oo adigu ma qaadan kartid hawsha inta anigu iyo xilka aan haya xilka madaxweynuhu uu ogol yahay een awooddeeda leeyahay waa qaadanayaa waa fulinaya waxaa igaga xidhan xeer qaranna waddadii lagu fili lahaa baynu doonayna oo anigu keligay aanan goyn karayn dhibaatada maanta ka jirta timaada ciidankaa saamax ciidanku wuu kala qaybsamaa ciidanku waxay leeyihiin sharciyo gaara oo ka duwan xeerka madaniga shacabka lagu qaado laba maxkamadood baynu leedahay mid waxala waa ta ciidanka midna waa ta madaniga ah xaalkeenna arrinta ku jirtaa waa arrin ciidan xeer ciidan bay martaa ciidamadu kuwa kale way ka duwan yihiin sharcigoodana wuxuu ilaaliyaa qarannimada ciidanku waa dad aynu isu geynay oo beela ka wada tirsan oo nin walba reerkiisa iyo isaguba sidaa adigu aa wadaan marka dembi dhaco odaygii soo kacayo oo lagu soo qayrinayo oo leeyahay inankii haloo gargaaro dembi uu gala hal dhaafo laakiin ciidamadu taa ma raacaan maalin walba waxaa maqashaa nin ciidana xerada ka maqnaa maxkamad baa la saaray dembi buu galay maxkamad kuwa kood baa la saaray taasi waxay ku eg tahay ciidamadu inay adkaadaan waayo haddii iminka qof gaari ka dhaco ama gaari jiiro bilowkana waa la xidhaa reeruhu si yimaadaanoo iyaguba xalka gaara baabka u xidhaadaa waxaa la waayta maalin walba ciidamada qaranka waa la dilaa cadowga ma aha waxaad maqlaysaa nin buliisaa ku dhintay rabshad waxaad maqlaysaa nin ciidan nin xabad kaga fakatay odaygu ma soo dhex galo cid looma doono maxkamaddaa ciidamadaa la mariyaa xataa ilaa dilkiisa waa waxa ciidamada ugu siiyey markaa sharci gaar ahay wixii adugu aan awooddeeda tahay iyo xukumad ahaan kow ciidamada waxay u qabsayeen saraakiil iyo askar waa kala kiis inamada halkaa jooga sarkaalkaa sare ee magacowda ee hor jooga mooyaane intooda kale dhammaantood saacaddaa laga bilaabo wax alle wixii qaranku dambasta waan ka saamaxay waana la saamaxaya waxaanay diyaar u yihiin galabtadaa in guddigii farsamo loo saaro ciidamada qaranka ay ka mid noqdaan toos sharcigaa iyo laakiin saraakiisha sare ee hogaamiyaha gaashaanaha sare ee halkaa jooga maanta waxaynu u baahannahay inaad ii soo martaan sharcigan ku saamixi karo sharcigu wuxuu ogolyahay oo saamixi karaa marka dambiga intaa la eeda intaa la joogto qofkii inuu xiran yahay oo dembigii uu qaatay uu xabsi ku jiro oo laga fikiro qofkii dembigana waa ka baxay waana ka cafiyey tan isku mida saamix awooddaa saamix qofkii dalka ma joogo 93 baa iga hortaagan awood keligay aad sarkaal sare oo ciidankiisa ka hor yimid aan keligay goyn kara hadday tahay intiina ma baan diideen wax walba waan siisan lahaa laakiin waxaana qaadi karay xaaji cabdow qodobkaa aad sheegaysaa iga hortaagan
maanta tiri baa iga hortaagan wuxuu leeyahay dadka isku hay oo qofka dembi gala dembigiisa baa ku qaban qati kale qofka dembi u galiyay sheekh sida quraanka waa sheegtay adalan ka buusaday ya ayad quraan aad sheegayso adigu adoon ya ayuha alladina aamanu kunu qawamina bil qist walaw ala anfusikum aw al walidayn aw al aqrabin war qofku markuu dembi galo dee ku joogso jooji حتى هذو نفتاذي هاي حتى هذو والد كاي هاي حتى هذو قرار لو كان قرية أو فقير أنا هذا كي بيتاكتر جاتك مدحونا تهدد كو حق قرار شرعي سكتاي وحمزون بالويلة يعني الجني ساسان وارمري وحي شرعي بيوغري هاي وحنو آدي آدي كما هطقيا وضياشينا وإيركا الله أصدر أفر سنة دولي تامشون تري انتهى وراك دولي كل بشر إذا كان أذيعي أنت لك رطور عندنا إذا يرتل ساري أنا وهو ورا جالس عطار ما تروح هناك كثيرين إن بعضان والشركة على أي برايك شيء دوتو عاد كيس يقرشاد تقرأ هذا آدي هذا كما هم قيا قرن كون وايدينو بيها أنا جا حكومة ظهر يدور هنا ولوك دون يهجن هذا الشيء قرن كيب أو وحكو هذا قاطي تاسو بانو الكل مكان وحيوات كان يعني وحوي دات كان كذا بيا مامشان لقناهان سودان عاقل أو واحد بدن معقولة هايلة حساسية الكلية حلو هدي أتصل تفتح توصل بنيرين تهرب وهذه كمان هذا غير عند والله دبعت الرسول الدولة أنا إن الساير شو وجدت تقرن ككل ستة كله أي تصارع ونقرنسا سودان محمد الله ما هذا غير هذا يلوان الدولة هذا يسوي تحتين وقاضم يقرن كيبانو إيجي ليه لأنه قلها وحومنا عددين إيده إن القرن كنا إكتانا وهذه كم هذا غيرنا هل كانوا قادمين أنت أبقاتهم وإلا حشرين دولة هان ميركلو لقوا ورجعنا نبض إلا هو بنتوا وسلوك قاتنا كرم ما ينون وان بنقلب قرينا حكرشنا وان هذا